Hormuud Cable TV وهيلك شعبك. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa tababar u soo xidhay macallimiinta kala socday afar dugsi wuxuuna wasiir ku-xigeenku macallimiintan ku amaanay doorka ay ka qaateen waxbaridda dhallaanka Somaliland isagoo sidoo kalena kula dardaarmay in cilmigii iyo aqoontii ay halkan ka korsadeen ku dabaqaan dugsiyada ay wax ka dhigaan ee ay ka kala yimaadeen saad la socotaan waxbarashadu waxay lafdhabar u tahay horumarka bini'aadanka oo bini'aadanku hiigsanayo haday dhaqaale tahay iyo haday tahay horumar xagga maxayda bulshadaba waxbarashadana iyadana waxa lafdhabar u ah macalinka marka idinku waxa tihiin waxbarashada lafdhabarkeega marka idinku hadii aad xirfad yeelataan wanaagsanaataan waxbarashaduna way noo hagaagaysaa anaga wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxa noo siyaasada tayeynta macalinka waxbaraya ardaydeena taas oo ay barbilow tahay kulliyadda oo imikana lagu kordhinayo qaybtii chiefka oo macallimiintu chiefsan doonto oo halka wax ku baran doonto marka geediga aynu bilaabanay tayeynta waxbarashadu muddo soconaya mar walbana inta itaalkeena aynu ku darana way dhaweed ogtihiin awoodeena dhaqaale inay kooban tahay oo inay u buureen haddana si wada jir ah ayaynu uga shaqeynana macalinka waxa looga baahan yahay aqoontii halkan oo ku bartay inuu dabaqo galaaska ardayga wax barayo ardayga macalinku wuxuu yahay role model tusaale u yahay tusaale nolosha gudbiya aqooneeda quraata ma waa tusaale nolosha macalinku hadduu noqdo macalin diyaarsan oo casharkii soo diyaariyay oo ku yimid maxay ahayd waqtigii loogu talagalay yimid waqtigii loogu talagalayna shaqada ka baxay ardayga laftiisu tusaale u noqonaya laakiin haddii macalinka sigsaag uu ka muuqdo ardaygii sigsaagnimadaasi adigu kuma koobnaanase way dhammood role model baatay tusaatay ardaygii marka tusaale ka qaadanaya marka macallimiintana waxaan ku dardaaraya inay noqdaan tusayaal ama role modelis wanaagsan dadkaynu wax baranaana waa dad ubadkeeni weey mid waanu qirsanahay waxa qaadataan maaha wax mushaar ahaan idinku filan noloshiina shaqada ay wasaaradda waxbarashadu inta badan hayso waa shaqo muwaadinimo mutadawacnimo u baahan qofku inuu maxay dareen muwaadin ku shaqeeyo oo waxa weeye oo ogaado shaqadan oo haya in ay tahay shaqo ifiya aakhira anfacsa wada cilmiga lagu intifaaco waxa weeye waa waxyaalaha wuxuu ka mid yahay qofka bini'aadanka ifiya aakhira anfac waa Maxamed Andar Hormuud Cable TV magaalada Hargeysa.